السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي وائد السلامي الصحابي وياهم وأكلم قناعي ورحمة برسيته وأسكال الله الحمد لله. صحابي وحرامانتي نعيد له وداقو وحيالا أنيقا آن مارك عافيمات كأركي وآن سمي وحانا سمعينين يعني ما إليش يقايو وهذا مارك آن أنيقا أرق واحتركودا بهالكاس كل واو التقانين فلاكسيد اللي لها أمالينا يا وفلاكسيد لو يقانو dadka qaar qoondare u yaqaaniin aniga laakiin kulay falaxseed aan u aqaanaa marka geedkaas wuxuu u fiican yahay waxyaalo badan kulay u fiican laakiin anigu waxaan u isticmaalay waxaa ka mid ah waxay xanuunaya garbaha iyo murqaha ka dambeeya meesha ciyaalka murquhu maaragtay murqu ka galo oo garabaa ku jira ima waata la yiraahdo marka xameetidana waxaa igu yiri xoogaa dhagaxa kaaga jira xanuunkaas qaarka hore oo dhan u hayaa xanuunayay muddo dhan uu xanuunayay adiga aan 6 sano ama 5 sano ku qiyaasi karo kadib waxaa la ii sheegay inuu kala fiican yahay waan soo qaaday waan tijaabiyay alxamdulilaahi rabbil caalamiin xanuunkii oo yahay feeraha iyo qaarka hore oo dhan murqihii wixii oo dhan horta ilaahay igu gargaaray marka sida uu isticmaalay sidii aan ugu sheegay aniga hadda dib cabirka ii saaro waa ka saamaqliya dadka ii saaran waana ku shubay waa taas markaan ku shubay si xayaati loo dubo kala duwaysaa sidoo kale shubay kaas badanaya nus kiilo camal waaye waa ku shubay markuu xoogaa bac ku yiraahdo dabka gabal badinaysid sida xawaajiga loo dubo kala u dubaysaa markaa u dubtidna haddana sidaa u qasaysa anaa ku tusaale haddii ilaahay yiraahdo kolley qofkii yaqaana waa yaqaanaa qofka aqoona laakiin waa kaas sidaa u dubaysid birtii hadda waa kaas dabka waa ii saaran tahay dabkana uma dheeraynaysa hadda labu ii jooga aniga meeshaasoo kale 3daasaad ku dubaysaa markay kuu kulaato kadib dabka waa u gaabsanee marka insha allah waa kaas استعمالك يمكن ويصير له شيء واحد نبغى نتوسيا هدي لا يرهدوا وصود ما شاء الله وكاس وعيد بنويا ولي ما سفع من الدبن وعقو قرنا يسامرك الدبن وحوله وش هذا مرة الدبن وصير كيرسه وحنا نقنا يا عرف وأدب ونقنا سجنا وعرف يا markaas uu carfo xoogaa bac yiraahdo inuu ka gubto lama rabo laakiin inuu xoogaa yar dubmaa la rabaa bis oo uu carfo oo udug uu noqdo insha Allah marka sidaas darteed ila tijaabiye ila arka ani waxaan tijaabin oo ani caafimaad ka helin ma idin soo dhigaa alxamdulillah rabbil caalamiin caafimaad taam ah aan ka helay oo ilaahay igu gargaaray oo maaragtay waxyaalaha caloosha lagu socodsiinaa xitaa uga maarmay ayaan ka helay qaarka hore ilaa feeraha xabadka garbaha hoostooda qoorta muruqi igu taagnaa ilaahay iga baxshay marka ila baroway asxaabe insha Allah markaan hadda shiidana waa idin tusayaa inta aad qasanaysid oo kala qiyaasta haddii ilaahay yiraahdo ood cunaysid برا حوله بس ما بيتكلم ساعة ميران هذا مركز ما في الدين من هذا في الدين هذا الشيء ده وتصابرته وكشفته يروح رجع أنا وده الشيء ده يروح إنك أنت تصاين الشيء ده هذا وكذا وكذا وسوشي أنت عنكو ترى qaadadaas waa taas u jeedin qaadada taas qof walba intuu rabo la ekaysan kara waxaad ma jiraan qaadadaas halkan koobkan biyaha igu jira waa kaas koob aan buuxin aad ma buuxo darto buuxsan kartaa laakiin intaas oo kala qasanaysaa sida loo qasaayo saasad ugu shubeysaa hadda kulli qofan waxaasi aqoon ma jiro sidaasaad u qasaysaa meel baad dhigaysaa habeenkii markaas leexanaysid inta meel dhigaysaa waxaad soo kacaysaa asagoo maaragtay jiidmaayo saasaad qaadada u dhexmarinaysaa haddaa marka subaxii qof qudaar shiita tahay qudaartaad ku darsanee
hadda qof yoogad cuna tahay yoogadkaad ku darsaneen yacni waxaa loo qasayaa waxay tahay labadaba ama waa tijaabiyey anoo xalay qasay iyo anoo aan qasin labadaba waa tijaabshay marka waxaa wanaagsan inaad xalay qasto sababtoo ay tahay xoogaa maaragta ugu dhardhareer iyo wuxuu leeyahay jiijiid waxaas calooshaada ku dhex samaysmayaan maalintii marka waxaa dareemaya markaas aad cunto ka bacdi calooshaada in wixii ku fuureen oo ku dubirtay oo xoogaa maaragta aad dareemaysid laakiin markaad sidaan habeenkii u qasto halkaanuu kuu xaysmay wixii u ahaan lahaa halkaan ku ahaaday saas u jeedido hadda waa kaas waa jiijiidmaya ciyoonba waa kaas saas marka wuxuu ahaa lahaa halkaas ku ahaaday asoo subaxii mushaariyaha soo toose qaadada dhex marinee haddaad qof wax kala cunaayo shiishiidanaya tahana ama mushaari iyo waa ku dhex darsan kartaa laakiin alsey adoon waxba cunin aniga sidaas aan alsey waxba cunin ayaan saas u cunay saasaan fiican waxaad cuni lahayd 10 daqiiqad soo jooge 20 daqiiqad soo jooge markaas ka bacdi aad cunay aniga waan cunay caafimaadna ilaahay igu siiyay alxamdulillah sidaas aan cunay waxba kuma aan darsan laakiin adigu waa saad jeceshahay kulli waa ku jira calooshaada wax ku darsatay laakiin aniga sidaas aan cunay sidaas hadda ay tan u jeeda sidaas aan cabay kaligiisaan cabay 10 daqiiqo ama 20 daqiiqo ku joogay inta badan subaxii ma quraacdo laakiin markaas haddaan shaah cabi lahaa haddaan qaxwo cabi lahaa haddaan wax kala shiidan lahaa markaasaan ka bacdiyaan isticmaalaa marka sida aan aniga idiin qishay sameeye insha Allah feedbackna waa arki doontii qof alla qofkii ka cabanaya gaas iyo xamiiti ha cabo aniga wuxuu kaa soo saara kuma lihi laakiin waxaan kuu sheegayaa inuu kaa dejinayo oo xanuunka dhanba ilaahay qandhajabis camal uu garbihii iyo wixii oo dhanba culayska iiga qaaday waana muddo bilan waa isticmaalaya markii saddexaad hadda aan soo iibsaday oo shiidanaya alxamdulillah rabbil caalamiin waxaan ahaa dadka isticmaala maaragtay caleemaha caloosha bixiya waxa caloosha lagu bixiyo wixii oo dhan xaggan iska istaajiyay haddaad gaas qabto waxaas waa ku dhibayaan haddaad maaragtay xamiiti iyo maaragtay xoogaa beerka iyo waxyaalahaas aad ka xanuunsan tahana waxaasoo dhan waa ku dhibayaan laakiin se tan kuma dhibaysee qofkii calool jilicsan aad iyo aad ugu fiican tahay cuntooyinkana markaad adiga inaad isqaras bixin lahayd oo hadba maaragtay wax caloosha lagu bixiyo aad calooshaada bari lahayd cuntooyinka dabiiciga cuna cuntooyinka dabiiciga hadda warqadaas waxaa ku qoran qofkii horta Swedish yaqaan ecologiska ku qoran waxyaalaha maaragtay oo maaragtay oo originalka waa marka ecologiska haddaa aragtid waa waxyaalaha originalka marka cuntooyinka originalka oo sidaas oo kale taa wala aniga waa bedel cuntooyinka guriga oo dhan waxyaalaha originalka haddaa cuntid calooshaada caadi u socon maanta 2 jeer adoon shubmin isku soo galaysaa bahalkanna waa inuu brownka ahaada waa noocyo badan yahay ecologiska brownkaas waa inuu yahay waqti bahalkan markaa soo gadanaysaas waa inuu madow yahay oo madowgaas uu yahay hadduu cad yahay aniga ma sheegin laakiin brownkaas ugu fiican brownkaasna waa inuu midkaan soo iibsaday oo ina sheegay inuu fiican yahay marka insha Allah waa kaasaan subscribe-ka iyo like-tan ha ila dhaafinina feedback-ga ii soo celsho comment-ga igu soo qoro subscribe-ku waa igu yarahay asxaabi ii badiya insha Allah qofkii video-ga arka like-ta ii saaro maaragtay subscribe-kana ii saaro comment-ga iyo wixii aad ka faa'iidaan haddaad wax ka faa'iidaan waa ka faa'iidaysaan haddaad isticmaashiin ii soo duceey insha Allah wax kalena waa idin hayaa oo sidoo kale aan tijaabiyay hadda ka hor 15 sano ka hor ilaahay igu caafiyay caafimaad badan aan ka helay haddana meelaha in laga sheego waan arkay laakiin qofna waxay ku tahay wuxuu sheegitaan iyo wuxuu maqlay qofna waxay ku tahay inuu asagu isticmaalay oo tijaabiyay oo wixii uu ka helay caafimaadka ilaahay ku siiyay marka aniga mid kalena waa idin hayaa insha Allah oo caafimaad aan ku helay oo kaniin uga maarmay oo mar kalena cudurka ilaahay igu soo celinba wixii aan ka isticmaalay markaas waan wax yar aad u fudud khayr aan rajayna assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh khayr Allah idinsiiyo anigana sidoo kale insha Allah marka feedback iyo ducada idinka waa xagiina inkasta majaaladii soo gunaanday horta waa soo shiiday waa kaasa halkaas ku soo shubay laakiin waxyaalaha laga helo oo ka arkay waa 3 shay waxaan idin sheegay murqaha iyo maaragtay xanuunka xamiitida iyo in loo cuno waxaan idin sheegayaa hadda waxa kale oo uu leeyahay waa hurdo maasha Allah dad hurdi jirin hadda habeenkii muruq ka seexaway hadii garabku xanuunayo hadii feeruhu xanuunayo intaba
وكاس وإدعو إن شاء الله. إنت كإلا وإنه بدلي يبدأ واقع ككلي.